Aabe ayaa dardaaran siiyey wiilkiisa oo qaangaar ah. Waxa uuna ku yiri, wiilkaygiiyow, marka keliya ee ay tahay inaad feer iyo gacan adeegsataa, ha noqdo mar aad naftaada ka difaacayso qof gacan kuu qaaday. Gabadha aad ku arkayso sawirka, masraxa, suuqa, goobaha shaqada, waxbarashada ama sharaacyada waa nin kale walaashiis, inantiisa ama gabadhiisa. Waxaad ula dhaqantaa sida aad u jeceshahay inay ragga ula dhaqmaan walaasha ama gabadhaada. Waxa aad naftaada bartaa in ay kala shaandhayso hadalka inta aanu dibnahaada ka soo bixin. Ka fiirso dhadhanka erayada iyo kelmaduhu u yeelanayaan dhagaha qofka aad la hadlaysid. Sidoo kale, ka taxadar sida aad u xulanaysid erayadaada. Wiilkaygiiyow, baro in qofka aad iskhilaafi kartaan, kala aragti noqon kartaan, iyada oo aanay colaad shakhsi idin dhex marin. Weligaa ha u ogolaan in qof kale kuu fakiro. Adduunyada maanta waxaa jira dad aad u badan oo jecel in qofka maskaxdiisa ay ku shubaan aragti ay iyagu qabaan. Wiilkaygiiyow, in qof kale aad isu ekaysiisid ama isku dhiririsid waa kalsooni darro. Ku kalsoonaa cidda iyo qofka aad tahay, waayo qof kale sida uu yahay ma noqon kartid. Dadku sida aad tahay ayay kugu aqbali doonaan. Weligaa ha iska raaxaysan iyada oo xaaskaagu howl adag ku jirto, xitaa haddii ay kugu celceliso in ay iyadu ku filan tahay. Hawshaas ha ka yeelin ee wax uun ka caawi. Ninka ragga iyo wuxuu garanayaa in oohinta ama ilmada ragga aanay ceeb ku jirin, laakiin iska jir ku talax tegidda iyo in ay kugu badato. Ha isku dhejin ilaa xadka aad aaminsan tahay aragtidaada ama go'aanka aad qaadatay. Hana isku mashquulin ilaa heerka aad ku qanacsan tahay saxnimadiisa. Waxaanad ogaataa in si kastoo aad isula quman tahay ay haddana suurtagal tahay in aad qaldan tahay. Wiilkaygiiyow, dadku waxay kaaga go'aan qaadanayaan sida aad u eg tahay. Waa run in ay taasi qalad tahay, laakiin waa sida ay dunida maanta u shaqayso. Sidaa awgeed, taas niyadda ku hay subax kasta marka aad bixitaan u labisanayso. Ugu dambayntii, weligaa naxariista iyo calool jileeca ka tagin, kuna dadaal in aad mar kasta naftaada dhigto halka qofka aad la macaamilaysa taagan yahay.